مساك شعب كنا لو ذهبوا يوم الصوماليين نيوز أما أخير دقة هو بان شعب هو يفتينه هدانا هاي بوليس الصوماليين إذا كبوليس الصوماليين وحصار المسؤولية خاصة مثل قول كبنادر وحصار المسؤولية كوين مت شخصي وحصار مت مسؤوليات أو سركيات أو عيدان أو بأهن إنان حلنه وحول بق ونمتجيدا درada dalka u keenaya qaasatan gobolkan sidaa darteed maantay ma doonayno in qalalaasi ka dhaco magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ma doonayno in dib dambe lagu soo laabto oo loogu soo laabto dagaal iyo aragti kala duwanaansho xabad wadata oo aan u qalmin qaranka Soomaaliya inay dib ugu soo laabato ما dhici karto in baarlamaanka Soomaaliya oo aan u dhaartay sharaftiisa isgiisa inaan wardiyo inaan soo xiro ama soo dilo baarlamaanka Soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobiyo inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka Soomaaliyana waxaan leeyahay 4 sano ayaad joogteen afartii sano waan ka dhamaatay waa la idin soo doortay doorasho dib ugu laabta dagaanadiinii iyo dadkii idin soo doortay dib kalsooni u weydiista kadib imaada adinka oo xalaal ah oo dal soo doortay ah adigoo lagu soo doortay ha ka fakirin inaad wax boogto oo aad wax kororsato waxaad heli kartaa waqtiga iyo kharashka iyo rafaadka ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato markale amniga gobolka Banaadir aniga ayaa ka mas'uul uga sareeya muxaarad iyo mucaafid qof walba oo Soomaaliya waa inuu amni ku joogaa kama shaqeyn karo qalaaso kama shaqeyn karo hebel ku dub kama shaqeyn karo waxaas oo dhan gurigiis nabad inuu ku joogaa businesskiis nabad ku joogaa magaaladiis nabad ku maraa looma baahna baabul dagaal qof walba oo haysta oo raba inuu isticmaalo qof kale Soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas'uuliyadaas ana u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka Banaadir ciidamada qalabka sida ma kasta yihiin meel walba joogaan waxaan u baahanahay midooba cadawga midooba cadawga waa argagixiso wadanka hal cadow leeyahay iyo cadow leeyahay keenay hebel ku dul difaac inta ka soo gal inta ka gal magaalada hal dumiye waa dhamaatay noomo waxaan u baahanahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka Soomaaliyeed ka baxaan qalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag 15 bilood oo la korashado oo dib noo dhigta 15 sano ma doonayno waxa loo baahan yahay in mas'uuliyad wadareed la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabadda wada noolaado ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa wadanka mas'uuliyadiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kala xoogaya ha ku celiyo teendada furan shirkiga furan nabada furan hal lagu laabto hal lagu soo kala goosto waxaan u baahanahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta hadda tihiin inaad wadanka qaranka dantiina ka hormarsan dadka qaranka loo baahan yahay looma baahna inaad hub isku arursataan looma baahna inaad tiraan hebel waa dhintay hebel waa dhacay hebel waa inta aqliyaa loo baahan yahay maanta aqliyaa looga baxaya haddaadan aqli haynin awoodda ciidanka iskale amniga ciidanka iskale mana loo baahna in qalqal la geliyo mana loo baahna in lagu xadgudbo dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho loo baahan yahay ninkii la doorto doorasho ka raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaa iyo dib in magaalada difaac looga galo oo daariyada la dumiyo ma dhici karto waxaan leeyahay mas'uuliyadda qaado ra'iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay
وكما بحنا إن الملك فريسته أو حلقوا ميري وأديك إن أو حميسة